xilligii rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam uu noolaa waxa dhacday qiso cajiib ah waxa jiray nin adoon ahaa ninkaasi adoonka ahaa waxa xoreeyay rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam ninkaasi magaciisa wuxuu ahaa Thawban Allah ka raali noqday Thawban waxa wajigiisa ka muuqatay farxad dhaaftay kolkii rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam xoreeyay saamarkii rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam uu soo fiiriyay Thawban waxa wajigiisa ka muuqan jirtay farxad cajiib ahayd wuxuuna mar waliba Thawban ahaa mid raadiya inuu arko wajiga rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam maalintii dhowr jeer waa inuu arko oo kaliya rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam wuxuu u raadinayo isagoo aragtida rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam ku hilmaami jiray daalka iyo wareerka maalintaasi ka muuqda waa aragtida rasuulka Allah Muhammad naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatay oo kaliya maalin maalmaha ka mid ah muusan arkin Thawban rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam waa uu waayay markaas ayuu mar dambe arkay markii rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam uu arkay wajiga Thawban wuxuu ka dareemay murugo iyo wajigiisii oo nuuc kala noqday oo ay ka muuqato murugo aad iyo aad u xun markaas rasuulka Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam weydiiyay Thawbanow maxaa ku helay maanta maxaa si ka ah ii sheeg maanta aad iyo aad ayaad u murugaysan tahay maxaa ka qaldan markaasuu Thawban ku yiri rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam markaasuu Thawban ku yiri rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam ma ogtahay inaan ku jeclahay waxaan jeclahay inaan maalin walba ku arkaa kun jeer markaan ku arko waxaan dareemaa farxad oo waxa iga haada ciriirigi iyo daalka maalintaasi oo dhan ma ogaan kartid sida ay xaaladeyda noqonayso markaan ku waayo rasuulka Allah waxaan halkaan u imid inaan ku arko laakiin waan ku waayay laakiin markaan ku waayay ma ogtahay waxaan u maleeyay rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam waxaan u maleeyay inaad dhimatay oo aad aakhira aaday waxaan ka naxay haddii aad adiga aakhira aado waxa lagu qaadayaa Allah weyne subhanahu wa ta'ala agtiisa ma ahan janno oo kaliya halka ugu sareysa ee jannada jannooyinka ugu sareysa ayaa lagu geenayaa oo aad la kulmaysaa ambiyada oo dhan iyo kuwa adiga ku adeecay oo dhan laakiin aniga weligay dambe kuma arkay rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam xitaa haddii aan galo jannada halka aad joogto ayaa iga maqaam sareysa suurtagal iyo ma noqon doonto inaan ku arko haddaba rasuulka Allah maxaa igu dhacaya markaasi aniga sidee noqonaya rasuulka Allah ii sheeg markii ay Thawban afkiisii ka sii dhamaatay hadalka waxaa yimid Jibriil alayhi salaatu wassalaam oo soo dejiyay aayadan ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كي أدعانا الله إيه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم waxay ahaan doonaan la jirka iyo rafiiqa kuwa alle uu ku galadaystay nimcadiisa oo ah nabiyada sidiiqiinta kuwa raacay nabiyada oo ahaa horaankii iyo cidii ugu horeysay ee nabiyada sida Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu shuhadada iyo suubanayaasha kuwaasi la rafiiqid wanaagsanaadeenah subhanallah 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 Allah inagu dar kuwaasi la jirkooda Allah inaga dhig kuwaasi la jirkooda markii Thawban uu maqlay ayadaasi waxa ku yaraatay dhulka oo farxad ishayn kari waayay markaasuu dadkii u sheegay oo ku yiri ma ogtihiin in ayadaasi aniga sababtayda ay ku soo degtay ma ogtihiin inaan aniga aad u jecelahay rasuulka Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam markaan murugooday oo aan isri dib dambe uma arki doontid rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam waxa yimid Jibriil oo yiri haddii aad jeceshahay rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam وأد doonayso inaad rafiiqiisa noqoto rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam wa in aad raacdaa dariiqiisa kana leexataa dariiqyada xun kuna amal fashaa quraanka iyo sunnada rasuulka Muhammad sallallahu alayhi wasallam haddaba walaalayaal waa inoo cashir haddii aan doonayno inaan rafiiqi rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam noqonaa waa inaan ka tagnaa waxyaabaha maalayacniga ah وإن قادنا طريق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن كلحنا طريق يضحن وإن كفقنا وإن مروى البكوتنا طريق رسولك صلى الله عليه وسلم ولا ليال
aan ilaahay subxaanahu watacaala ka barino inaan dariiqii iyo rafiiqii rasuulka alle muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo kuwa ambiyada iyo kuwa saxaabada iyo kuwa taabiciinta ilaahay inuuna raacsiiyo ilaahu fidnada qiyaamo ilaahu gees inaga marsiiye asalaamu calaykum waraxmat ullaahi أشهد أن محمدا رسول الله